adduunka waa goob imtixaan waxaana jira dad sabab badan darteed waaye xubno jirkooda muhiim u ahaa oo ay adag tahay inaad si fudud uga soo kabsato muuqaalkanna waxaan ku booqan doonaa oo aan albaabka u garaaci doonaa qaar ka mid ah dadka lixaadka waaye balse aanan isdhigan ee nolosha horumaro waaweyn ka sameeyey Stephen Hawking waxa uu ugu horeeyaa dadka tusaalaha loo soo qaato marka laga hadlayo dadka lixaadka la ee guulaha gaaray. Stephen sanadku markuu ahaa 1963 waxa ku dhacay cudur sababay inuu socon waayo xitaa heer uu awoodi waayay inuu hadlo codkana waxa ka soo saari jiray mashiin sidaas ay tahay isma dhiibin ee waxa uu rumeeyay riyadiisii waxa uuna jeclaa fiisigiska waxaana buugaagtiisa laga dhigaa jaamacado badan oo dunida daafaheeda ku yaala waxa uuna geeriyooday March sanadkii tagay ee 2018 Nicholas Jamie Fusik waxa uu ku dhashay cudur dhif iyo naadir ah oo lagu magacaabo Tetra Amelia syndrome waxa uuna ku dhacay adduunka inta la ogyahay 5 ruux oo kaliya badanaa way adkeed qof la noolaado Nick waxa uu leeyahay laba cagood oo aad u yaryar waxa uuna aas-aasay website ugu magac daray Life Without Limbs oo uu la jeedo nolol aanan adimo lahayn waxa uu awoodaa inuu sameeyo wax walba oo qof asaagiisa ah sameyn karo dharka ayuu xiran karaa oo dabaalan karaa waxa uu aaminsan yahay inaysan jirin wax ka dhiman noloshiisa waxa jirta khudbad caan baxday oo uga hadlay noloshiisa iyo golow inaan wax yar ka turjumo inta ugu muhiimsaneed khudbadaas ma faagfaagaya boogahaaga oo anigaba waan dareemi karaa dhibaatadaada waxay tahay waxaan arkay nolosha gacmo la'aanta dadkuna waxa ay leeyihiin gacmo malihid lugo malihid iyo wax la mid ah waxaana laga yaabaa inaad leedahay gacmo ama lugo nolosha balse haddii aadan saddex nolosha ka jawaabi karin kow kuma tahay waa maxay qiimahaaga labo waa maxay hadafkaaga nolosha saddex marka aad dhimato xageed aadi doontaa haddii aadan aqoon jawaabaha su'aalahan adiga ayaa aniga iga naafaysan waa mid ka mid ah khudbadaha uu Nick daafaha caalamka uga yaabsaday Nick waxa uu qabaa xaas waxa uuna dhalay caruur waana shakhsi kalsoonidiisu xad dhaaf tahay kuna qancay dhibaatada ku dhacday Elizabeth Anna Velasquez balse caan ku ah magaca Lazy Velasquez waa youtuber dhiirigeliye iyo weliba fagaara ka hadasho caan ah gabadhan lixaadka ma laha balse waxa ku dhacay cudur naadir ah oo maqaarkeeda saameyn weyn ku yeeshay marka ay yareyd weyniyay jabsanaan jirtay waxaana nolosheeda bedelay markii ugu horeysay oo shaashada caalamka laga arko waxayna ahayd sanado ka hor iyadoo muuqaalkeedii ugu horeysay kusoo dul qortay gabadha ugu foosho xun dunida The Ugliest Lady in the World balse waxa ay ku heshay daawadayaal aad u fara badan oo dhiirigeliyay kuna dhahay waxa tahay qof qurux badan xilligaas wixii ka dambeeyay kalsoonideedii way hormartay oo hadda YouTube-keeda waxa ku xiran in ka badan 800 oo kun subscribe buugeedii ugu horeeyay oo ay soo saarto waxa uu ahaa Lazy Beautiful oo macna ahaan ah lazy-dii qurxaneed dad badan ayaa iibsaday buugeeda waxayna mar walba sheegtaa in ay tahay gabar qurux badan nolosheedana ku faraxsan xaqna ay u leedahay in sida ay tahay lagu xushmeeyo Muniba Mazari waxa lagu naanaysaa marwada birta ah oo macna ahaan waxa loola jeedaa ruux karti badan oo adag waxayna u dhalatay dalka Pakistan gabadhan dadka aan soo sheegnay way ka duwan tahay oo cudurkan lama dhalan balse gaari shil ah oo ay gashay ayaa sababay in dhaawac uu ka gaaro laf dhabarta sababna u noqday in ay socon weyso waxayna noqotay nolosheeda in ay ku fadhiisato wheelchair ama kursiga loogu talagalay curyaaminta Maniba waxa ay sheegtay in dhaqaatiirtu ay u sheegeen in aysan dhali doonin mar dambe ninkeedana markii uu ogaaday in aysan dhali doonin ayuu xaas kala guursaday Maniba waxa ay sheegtay in ay ka codsato in uu furo sidoo kale meelaha caruurta aan waalidka lahayn lagu xanaaneeyay ayay ka soo qaadatay wiil ay hooyo u noqoto Maniba waa dhiirigeliye sidoo kale safiirka u fadhiya Pakistan UN Women Pakistan khudbadaheedana waxa ugu caansan oo ay jeedisay Don't die before you oo macna ahaan ah ha dhiman dhimashadaada ka hor adduunkan caqabado kama dhamaadaan balse waxa la isku dhaafay kalsoonida iyo qanaacada waana waxa ka dhigay in ay guul gaaraan nolosha